madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa muddaxileedkiisa kaliya ka haray 2 maalin waxuuna markaa 8 bisha Febraayo uu noqonayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya ayaa waqtigeeda dhaaftay waxaana dhimatay rajadii laga qabay in shirka Dhuusamareeb 4 lagu gaaro heshiis horseedi kara in doorasho ay dhacdo iyada oo markaa xalay shirkaasi lagu kala tegay ugu dambeyntii. Dhowr goor oo hore ayay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay heshiis ka gaareen doorashada waxaana xigay khilaaf cusub kadib markii qodobada lagu heshiiyey la fulin waayay hase yeeshee marka xitaa heshiis lama hayo oo xitaa waxa ay u muuqataa in doorashadan ay noqotay mid gabi ahaanteeda fashilantay. haddaba maxuu yahay qorshaha mucaaradka haddii uu qaban waayo madaxweyne Farmaajo doorasho loo wada siman yahay? madaxweynihii hore ee Soomaaliya haatan gudoomiyaha midowga musharaxiinta mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qamiistii shirjira ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay waxa markaa dhacaya haddii ay sidaasi dhacdo. Sheekh Shariif ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin muddo kororsi hor leh isla markaana ay muhiim tahay in la ilaaliyo shuruucda dastuurka dalka u yaala. madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday haddii la gaaro 8 Febraayo isla markaana ay dhici weyso doorasho ay tahay in dalka uu markaa ku socdo heshiis siyaasadeed oo ay markaa u dhan yihiin dhinacyada oo dhan. Shariifka ayaa intaasi ku daray in markaa kadib loo baahnaan doono gogol Soomaaliyeed oo looga hadlo qabashada doorashada iyo arrimaheeda. waa la soconayaa waxaa loo baahanayaa gogol Soomaaliyeed oo Soomaaliduna ay isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qabanayo ayuu Sheekh Shariif hadalkiisa ku soo yiri. waxa uu kale markaasi shaaca ka qaaday in musharaxiinta ay ahaan markaasi bilaabeen kulamo wada tashi iyo waliba wada hadallo ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ay kala tashanayaan sida uu xaalka noqon doono haddii 8 Febraayo la gaaro madaxweynuhuna uu villa Soomaaliya markaasi sii fadhiyo. annagu hadda waxaan bilownay wada hadalladii qaybaha markaasi bulshada odayaasha ayaana maanta la kulanay waana wadi doonaa inta aan markaasi talada ururinayno ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. fadlan daawadi haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkan Wamo Media aad soo booqato hanaga ilaawin subscribe share like gambalelka furo si aad u rukumatid channelka Wamo Media. waadna ku mahadsantihiin daawashada wararka aynu halkan soo gelino. mahadsanidin.